السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا هيك شرفت الميل باجوكتين سودا وهذا ومركل فيديو كل عصب مركور عنكو سلينا نبينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سودا ولا هيك شرفت لي وحن في لا إنا أي حيستين أنا قبل سأدنكو حيسي وحيس آدياد وين أدنكو قبل مع المهم وإذن كما غناي وحن وإذن وضع قصة قطر soo dhawaada sharafta leh qisada waxay ka dhacday dalkeena Soomaaliya magaalooyinkiisa magaalo kamid ah gabadhan waxay dhahday gabadh ila soo wadaagtay dabcan waxay dhahday hooyaday iyo aabahay waxay dhinteen anigoo 20 jir ah waxa ila dhashtay 3 wiilal iyo gabdho mid walba way guursadeen qaarna way iga yaraayeen qaarna way iga waaweynaayeen inta badan way iga waaweynaayeen marka waxay tiri qof kaste oo ay guursatay sidoo kale aniga waa guursaday laakiin waxay tiri aniga wax caruur ah ma aan dhalin marka waxay tiri waxaan guursaday 4 nin oo midkiiba dhowr sano ii qabay 2 sano 1 sano iyo bar 3 sano ilaa ay da'deeda ka gaarto 30 sano marka waxay dhahday guurarkii aan soo maray wax awlaad ma dhalin wax ilmo kuma aan dhalin marka waxay dhahday walaalahay iga yaraayta way guursadeen qof walba danihiisu fiirsaday qof walba meel ayuu dagay marka waxay tir aniga niid ay iga jabsaneed qof iska qalbi wanaagsan waa ahay oo ilaahay qadartiisa ku qanacsan ina maalin aan heli doono oo ilaahay iga farxin doono waa ogaay laakiin waxaan islahay khayrka soo daaho insha Allah khayr le ilaahay ku siiyo marka waxay dhahday xaafad ayaan kaligeey deganay oo walaalahay lama deganin maadaama qof walba ay guursatay anigana qof guur soo marmartay ahay oo qof aqligeed u kala go'an aan ahay marka waxay tiri waxaan iska degay xaafad ayaan waxaan ka degay qol marka waxay dhahday waa iska shaqaysan jiray waqtiyada qaarkoodna guriga ayaan iska joogi jiray marka waxay dhahday maalmaha kamid ah ayaa waxa safar aaday gabar aan daris ahayn بسم الله gabar aan daris ahayn ayaa wixii aaday safar hooyadeed oo xanuunsan ayaa loo soo sheegay markii loo soo sheegay waxay dhahday safar gaabanaan tagaya caruurteeda markaas waxa ugu weynaay 10 jir 12 jir meelahaas waana yaraayeen waxay ahayn 5 caruur ah marka waxay tiri ilmahan kor iiga ogow ilmaha marka waxa la joogay gabar ninka adeer u yahay oo 16 jir ah iyo gabar kale oo markaas u shaqeyso oo maalinta u timaado oo maqribkii ka tagto madam ilmaheeda qaarkoodna ay waaweynaayeen waxay tiri gabar in adeer ninka adeer u yahay way joogtay oo ilmaha markaas maamuleysay marka waxay tiri gabadha shaqaalahan waxay gabar markaas xaas leh maalintii ay u timaada cuntada ay karisaa dharka ay dhaqdaa guriga hagaajisaa wax walba markay okay ka dhigto habeenkii xaafadeeda ay aadaa marka waxay tiri gabadha dariskeyga ah waxay iga dalbatay in aan caruurta kor ka ogaado suuqa wax looga baahdo ani aan hor u soo gado inkastoo xaafada ka adeeganayeen oo cuntadana jumla loo soo dhigay waxay dhahday mararka qaarkood xaafada waxa laga waynaa hilib waxa laga waynaa caano waxa laga waynaa khudaar marka waxay tiri markii ay dhacdo saasoo kaleento ilmaheyga adaan ku ogahay muxuu ahay suuqyada fog oo aad gabadha adeerka uu ninka u yahay ha u dirin meel waa gabar yar ilmahan ku ogahay iyada iyo guriga iyo waardiinaysa marka wixii banaanka laga doonayo oo meel fog loo doonayo ilmaha ka warhay ina soo kormeeri hay xaaladooda muxuu ahaa maqan yaa joogaya dugsi aad waxay tiri mas'uuliyad ay guriga iga saartay marka waxay tiri way baxday gabadhii waxay soo maqnad 2 isbuuc alxamdulillah ilaahay hooyadeed wuu caafiye way soo laabatay waxay dhahday muddadii aniga marka aan ilmaheeda aan u kormeerayay oo xaaladooda kor aan ka ogaanayay waxaan arkay ninkeeda in uu yahay nin aad iyo aad u wanaagsan oo ilmaha aad u jecel oo muxuu ahaay aad uga dardaarmayo oo habeenkii marka uu imaanayo waxyaabo u keenayo bacyaal wado soo adeegayo marka waxay dhahday waa ku farxay inuu jiro insaan oo kaleenta ah oo xaaskiisa ilmihiisa saan oo kale u tixgelinayo marka waxay dhahday muddo ka bacdi marka ninkan wuxuu ogaaday tiri in aan aniga guur aan soo maray dhowr guur aan soo maray wax ilman aanan haysanin walaalahayna mid walba meel dagay oo muxuu ahaay guri hooyo aabo aan ku laabana aysan jirin walaalahayna mid walba danihiisa fiirsaday mid walba ilmo u dhalay marka waxay tiri aad ugu naxariisi jiray maadaama ilmihiisan aan u waardiinayay waxay tiri uu naxariisi jiray wuxuu isi jiray
lacag ayuu marmarka qaarkood isii jiray, mararka qaarkood ijaarka ayuu iga bixin jiray. xaaladeyda markaan u sheegay aad uu ila damqaday. marka maadaama asaga ilmo u joogeen anigana ilmo aan haystay, marka ilmo aanan haysanay tiri, marka wuxuu dhihi jiray ilmahayga ilmahaaga kaleento waaye, muxuu ahay waa la joogi kartaa, waqti waa la qaada kartaa. wuxuu i dareensiinayay tiri in ay yihiin ayaga cideeda oo kale. almuhiim waxay dhahday laakiin anigii asagii ayaan ka helay. waxay tiri niyadeedan ani ma ahan inaan gurigiisa ku ciyaaro oo gurigiisa aan qaribo oo reerkiisa aan dudumiyo ma ahan. maadaama aan arkay sida uu u yahay nin dadaal badan, waa ka helay dhaqankiisa siduu ilmaha iyo xaaska ula dhaqmo. taas oo kaliyana ma igu qasbin in aan jeclaado. waxa igu qasbay in aan isbaroobeeyo mar shanaad, maadaama 4 jeer ay soo guursatay. mar shanaad inaan isbaroobeeyo inaan wax dhalaay iyo in kaleento. almuhiim waxay tiri xaafadii ayaan ka guuray. taasna waxaa ugu talagalay tiri haddii lacala ninkan sheeka inay dhex marayso inaysan xaafadiisa agteeda aysan ahaanin. marka waxay tiri xaafadii ayaan ka guuray. xaafadii markaan ka guuray wuxuu dhahay maxaa nooga guurtay. dabcan xaaskiisana mar hore soo noqotay. wuxuu dhahay maxaa nooga guurtay, wuu ka xumaaday, wuu soo raadin jiray. mararka qaarkood adeegu ii keeni jiray, marmarka qaarkood lacagu ii keeni jiray. laakiin aan niyadeedu waxay ahayd meel dheer inaa asaga wax ugu sheegto aan ku qabsado meel dheer. waxay tiri maalmaha kamid isoo wacay, xaaladeedu iga wareysanayay. nin aad iyo aad u ixtiraam leh na wuu ahay. marka waxaan dhahay tiri waxaan wataa dalab, ayaan wataa codsi, ayaan wataa, waxaan kaa rabaa inaa ii samaysid. wuxuu yiri codsigaaga iyo dalabkaaga madaxa korkiisa iiga saaran yahay, wax alle waxaad jeceshahay iga dalbo. markaasaan waxaan dhahay tiri waxaan kaa dalbanayo waxay tahay wax sahlan ma ahan, qofkii geesi ah ayaana kasoo bixi karo. waxaana rabaa anigoon laablaab kusoo marin in ay guursatid. maxaa kugu dhaco yiri gabar walaashay ahayd ku dhaqaaleynay, waa ku ixtiraamayay, gurigeyga taqaan, xaaskeyga taqaan, nolosheyda iyo waxay dhanaa taqaan, maxaa kugu dhacay. waxaan dhahay tiri horta maqal. waxaan dhahay tiri aniga waxaan raali ahay maalin dhaaf ina ii imaatid oo maalintiiba 2 saacadood oo kaliya ila joogtid kooma tahay. waxay tiri ma hadlaayay. waxay dhahday muxuu ahay wax ma kaa dalbanayay, gur ina ii ijaartid, muxuu ahay masruuf yarna ay siisid. waxay tiri intaas waxaa ii dheer 2 sano haddaan isla joogno oo uur aan yeelan waayo, ilmo aan dhali waayo, in ay furtid, inaan ku lugeynin, gurigaagana kaa dudumanin. aniga waxaa waay tiri hadafkeyga inaa ilmo dhalo. marka waxaan rabaa aad ku doortay inaa haddii ilaahay wax iga kaa siinayo aad fursad isiisid, hal daaba allah ka dhigo inaad fursad isiisid oo aad iigu naxariisatid. weligeyna waxaan raali ku ahay inaan qarsanaado oo banaanka aan usoo bixin. marka waxay tiri fursadaas isii, laga yaabo in adiga oolaad ku dhalo, xataa hal cunug allah ka dhigo, intaas iigu naxariiso. mana hadlaayay, juuqna ma dhahay. maalin dhaaf 2 maalin ka bacdini 2 saacadood ii imaaw, ka badan ha ii imaan. taasoo waxaa ii dheeri tiri 2 sano haddaan isla joogno oo ilmana aan dhali waayo inaa iska kii furtid. marka wuxuu dhahay dalabkaas dalab sahlan ma ahan. maalintii wuxuu tiri wuu ila hadli waayay, wuu iska aamusay, wuu isku yaxyaxay, wuu isku xishooday. kadib waxay tiri isbuuc ma isoo wicin, isbuuc ka bacdi isoo wacay. almuhiim waa wada hadalnay, muddo badanaa wada hadalnay. kadib wuxuu yiri ani xaaskeyga ma rabo inay ogaato guriga inuu dudumo, ma rabo ilmahayga inay dhibaato soo gaarto, ma rabo. waxaan dhahay tiri ani ma hadlaayay. taasoo waxyaabahaasoo dhanne anaa kasoo baaraan degay oo waxaasoo dhan ma dhacayaan. waxay tiri dalabkeyga ayuu ii yeelay, kheyr allah siiyo. dalabkeyga markuu ii yeelay waxay tiri marka xaaskiisa way isoo xiriirin jirtay, telefoon iga haysatay. mararka qaarkood waa u tagi jiray maadaama aan xaafadeeda kasoo guuray. laakiin markaan waxaan sameeyey tiri waa wacay, waxaan dhahay safar ayaan magaalo kale u geli doonaa, goormaan soo noqo. maxaa yeele ma rabi tiri inay isoo raadiso, walaalahayna ma taqaanay dhahda iga raadiso. marka waxay tiri waxaan rabaa in ay akhbaar iga hesho, ma rabi ama isoo raadiso, ma rabi. almuhiim waxay tiri waxaan dhahay waa baxaa. maalmaha kamid aan wacay. waxay tiri waxaan dhahay tiri
وبحا مقالة كلا أيام وحا أقلايا سفر أقلا قرما صونو قنانا ما أقاني ساس أقو مركو حيت المدة كبعدي وحا أسكري قف بحذي ومقالة كلا جوكتو وحانا سميت الحافة دي مركاس أون دقناي واكسي قوري سي أيسان إيغا سورادينين لعلا وحيت الراتكي قلنا مبابي إنو يا مركو حيت الحافة دي كسي قوري تليفون كينا واسكتوري نمبر كي إيغا سوعي جرتي لفتي وحيت تري واكن سري واحري ودن إيدو دن بواحري كدب وحيد هذي تليفون كلا أيام مال المحكمة كوعي waxaan dhahay telefonkeyga hore buu iga kansalmay meela kala soo xiriir ma lahan hadan ku soo wici waayo waxa ogaataa inaan telefoon la'aan ay haysato magaalo fogna aan jiro saas ugu marka gabadhii xitir saasan iskaga aamusiyay saasan ku qanciyay mana rabi inay soo raadiso oo raadkeyga soo tabakacdo waxay dhahday waxa dhacay muddo ka bacdi laba bilood markaan ninkii sidii isku qabno oo xaafadiina aan ka sii guuray oo xaafad kale leega aqoon aan degay oo waliba xaafadaas aan degay waxay tiri guryaha kala dheer yihiin mar rabay tiri ninkan in la arko waxay tiri bil marka isla joognay bishii labaad waxaan yeeshay uur waxay tiri wuxuu ilaahay siiyay gabar waxay tiri sidoo kale markaan gabadhii dhalay oo umash aan ka baxay haddana waxaan yeeshay uur المهم waxay tiri 4 sano gudahood ayaan waxaan ku dhalay 4 cunug waxaan dhalay gabar waxa ku xigsaday wiil waxa ku xigsaday gabar waxa ku xigsaday wiil saas ayuu ilaahay igu siiyay tiri 4 sano gudahood 2 wiil iyo 2 gabdhood waxay tiri waa khayr ilaahay waa nicmo ilaahay ilaahay ayaa ugu mahadiyaa alxamdulillah shukr bil caalamiin laakiin waxay dhahday waa isbedel anigi waxa isku bedelay tiri fikir aayimid شيدان أي وسواسية waxaan ku fikiraa maxay ku dheertahay naagtaas maxaa ka dhudhuumanay ilma haysataa saddexa lagu qabaa ninkan xaqaas ku leeyihiin ilmahaaga xaqay leeyihiin iyada xaqay leedahay muxuu ahay waxa xaq u leedahay habeenkaada in lagu soo hido maxaa ka dhudhuumanay teeda kaleento waxaan ogeytir ninkeyga inuu cid famil aad u balaaran ka dhashtay oo wiil iyo gabdho la dhashteen oo ilmaheyga ay leeyihiin adeeryaal abtiyaal ayeeyaal awoowayaal famil aad u balaaran ka dhasheen marka waxay tiri maxaa ilmaheyga u qarinaya intaas maxaa ilmaheyga u qarinaa oo cidooda maadaama famil balaar ay ka dhasheen in ay qarsanaadaan waa xaraam waxay tiri waxaan isleeyahay ninkan uu dhiman karaa hadhowda xataa aniga si qarsoodi ayaa lagu mehriyay warqado ma haysto maxkamad la igama soo mehrinin waxay tiri wax cadeen ma haysto ninkan uu dhiman karaa ay waqti waxay dhahday ilmaheygi maxaa mustaqbal u ah maxaa dan u ah marka waxay tiri khalaas ani marka hore waxaan ku fikirayay hal cunug ilaahay ma kaasiya laakiin hadda waxaan ku fikirayay tiri sidii aan banaanka isku soo dhigi lahayn aniga iyo ilmaheygi marka waxay dhahday ninka hadaan yaani hortago oon dhaho banaanka noo soo bixi aniga iyo caruurteeda wuxuu leeyahay xabiibtiyay heshiiskeena saan ma ahayn maxaa iska ka bedelay gurigeyga ma duduminay waxa iga dalbatay inaan ku guursado hal cunugna aniga haduu ilaahay ku siinayo aad dhashid hadana khayr iyo barako ayaa haysataa khayr iyo barako ayaad haysataa 4 cunugna waad haysataa maxaa rabtaa wixii aad rabto waa heshay marka waxay tiri ina asagu u tago oo aan banaanka isoo bixi waa shay mustaxiil ah wax macquul ah ma ahan laakiin waxaan ku fikirahay tir habeen iyo maalin sidii aniga aan banaanka isku soo bixin lahay ilmahaygana i'tiraaf ay u heli lahaayeen bas marka waxay tiri waxaan ku fikiray gabar oo markaas aan isnaqiinay oo Yurub ka timid oo Yurub u laabanaysay ayaa waxaan ka qaatay tiri laf waa number simikaarka lagu hadlo waxay tiri markaan ka qaatay waxaan sameeyay tiri xaaskiisi numberkeedii ayaa asaga kala baxay telefoonkiisa markaan kala baxay waxay tiri waa save gareystay markii aan save gareystayna waxay tiri WhatsApp ayaan kula hadlay waxaan dhahay tiri waa salaamay markii aan salaamay waxay tiri dabcan waa isqarinayaa waxaan iska dhigayaa qof islaameed ayaan iska dhigaa waa isqarinooyaa يعني قف كلا اسكديجويا أنا جي اسكما ديجوي مركب waxay tiri WhatsApp ayaan kala xiriiray assalaamu calaykum wa calaykum salaam iisoo jawaabtay waxay tiri yaa way adiga isku kay sheeg su'aalo iga badisay kadib waxaan leeyahay aniga waxaan ahay facal khayr qof waxaan ahay facal khayr ku wado
حتى فعل خيرك إيه بديت مركا وحان إيه تري طبعا waxay tiri qoraal aan ku wada hadlaynaa waxaan u diray tiri sawirradii ilmahayga ayaan u diray waxaan dhihi tiri u qoray ilmahan waxaa dhalay ninkaadii macquul noqoys waxay tiri say ku dhici kartaa ninkayga yani waa hadal badan ii soo qortay beenaan sheegay inaa guriga dumisada rabtaa waxaan dhihi tiri ani hadii aan been sheegaa iyo hadii kaleento waxaan rabaa inaan cadeyntii faraha ka saaro cadeyntii inaan faraha ka soo saaro ayaan rabaa marka muxuu ahay hadda ninkaaga waxba ha weydiinin su'aalna ha ku qabsanin waxa laga yaabaa xaaska inuu ka qariyo oo meeshii degantaa ka sii raro waxaan rabaa inaan cadeyntii gacanta ka soo saaro meesha ay degan tahay gurigeeda ku tilmaamo saas ayaan rabaa marka waxaan dhihi tiri بريان كسو وعا waxay tiri birrid ayaan wacay iyadoo ay dhararayso tabcan qoraal waaye waxaan dhihi tiri hadii aad rabto inaad ogaato xaaska lagu la qabo waxay degan tahay xaafadaas waxay degan tahay guri noocaas jidka noocaas waxa u dhow yani masaajida u dhow dukaana u dhow yani waxay tiri u tilmaamay waxay ahday waxaan dhihi tiri waqtigaas iyo waqtigaas oo tag waqti ninka uu maqan yahay oo iidana la joogin tana la joogin aan waxay tiri waqtigaas u tag waa helaysaa sawiradan aan ku soo diray gurigaas ay joogan ilmahan yani gurigaas ku soo arki doontaa teeda kale waxa ku sii dheeray tiri waxa arki doontaa naagta oo ninkaaga qabo yaa waaye ayaad arki doontaa madaxaagana ma galaayo taas ayaa kaaga sii darnay tiri oo ku ah mufaajaco ama surprise aad kugu noqon doonto yani qof aad ka filaysid ma aha marka waxaan rabaa tiri inaan kashifmo wax dhan banaanka inaan soo dhigan rabaa marka waxay dhahday way ii imaatay waqtigii ana waa ugu talagalay waqtigii soo socotay ana balamiyay waxay tiri albaabka ay soo garaacday waa ka furay waxay tiri way isku naxday waxay tiri adiga miyaa markaas waxay dhahan waxaan dhihi tiri yani waxa iska dhigooya qof ka shifantay oo kale Allah baaya ku sheegay aan dhihi tiri baaya ku sheegay isdaji ana ku fahamsiinayo maxaa dhacay soo dhawo waxay tiri way ogaatay yani way si xaqiiqsatay ana ku fahamsiinayo calaf way waxaan saan way waxaan aniga waa rabay tiri inay ogaato sideedaba markay ii imaatay waxay tiri hadalka u dhameystiray teeda kale waxaan sameeyay tiri telefoonkeyga ayaan waxay tiri aan muxuu ahay intaan u furay meesha duubitaanka codka intaan furay aan meel dhigay iyadoo qaylinayso oo caytamayso oo jin isku ridayso waxaan iska dhigay tiri qof masaakiin oo dheys isdajiisaan yar iidan way qaylinaysaa waxay jijibinaysaa adduunyo jijibinaysaa waxay dhahday meeshii way iga tagtay marka iga tagtay maalintaas waxay tiri ninkeyga duhurkii ayuu wuxuu ii imaanay 2 saacadood waa maalintii 2 saac ii imaanay waxay dhahday markay iga tagtay oo gurigeeda u noqotay waxay tiri aniga gurigii wixii iida jijibis ma ahna wixii kale ana si jijibiyay tiri maadaama ninka uu soo socdo dulmigeedana agtaan sharta ay wadato waxay dhahday alaabtii muraayadihii aan sii jijibiyay bakeriyaal aan jijibiyay ma marka iida baxdaya waana dhameystiri ku tir gurigan sii jijibiyay waxaan baduuq kala sii baduuqay waxay tiri ninka ayaa yimid anoo qof naxsan iska dhigay oo meel fadhiyo maxaa kugu dhacay maxaa waysaan waxaan dhihi tiri xaaskaaga maanta ii timid yaa u soo sheegay ma aqaani yaa ka shifay ma aqaani wax dhacay ma aqaani waxay tiri gurigan muxuu ahay waxaan dhan iida jijibisay anigana ma hadlin haday aamineenin waa kana codkeeda dhageyso codadkii ayaan waxay tiri aan u shiday tiri hadalkeedii qayladii aan dhahay istaji walaalay saama aha kama aha marka waxay tiri wixii ka shif ma aqaan gurigan saan iida u jijibisay hadana way iga tagtay waxay dhahday marka ninkii wuxuu dareemay khalaas inuu ka shifmay xaaskiisana soo duushay codkeedana wuu maqlay guri inay jijibisana wuu arkay marka qisada nagu dheerta asxaabay qaybta dambe ayaa ka sii xiisa badan insha Allah maadaama 20 daqiiqo aan sii marayno qaybteeda labaad biri la socda insha Allah biidnil kariim haduu ilaahay uu idmo hadii aan ugu cusub tahayna subscribe noo saar fiidiyoda ku cajibin like noo saar inta fiidiyooga mid lamid ku kulmayna waxa idinkaga tagayaa saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma'a salaam asxaab sharafta leh